بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله درسنا نوح نقندونا فلله الآخرة والأولى وآية من كتاب الله سبحانه وتعالى إلهي آياداس قرآنك وحكوت المامية أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى بن آدمكو ما وحا تمني بوليه إلهي با إسكالي طهوري يتضنبابا معناه وحويان ودرسيان وصعدا أدونك يا آخرة إلهي بامامولا سبحانه وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إلهي وحو القرآن كآيات بدن كنت المامية إنه يسوي لي هي الدنيا دا يا آخرة لبضو بينك عنتي سكوشيران تا معناه وحويان ملكا وعبيدا بيسقاوله isagaa ilaahay keligii leh isagaa keligii ku tasarufa si awgeed qur-aanka waxaa ku soo arooray aayaad badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamayo mulku samaawaati walardi inaan cidila wadaagin walilaahi mulku samaawaati walardi wallahu calaa kulli shayin qadiir lilaahi mulku samaawaati walardi wamaa fiihinna wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaa 19 meelood bay qur-aanka kaga taallaa mulku samaawaati walardi inuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waa lafdiga mulku ee markaynu isticmaalno ama alfaada kale lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi iyo wixii la mid ah aad bay u tiro badan yihiin ilaahay waynu ogsoonnahay inuu cirka iyo dhulka iyo adduunka leeyahay aakhirana inuu leeyahay maxaa loogu soo celcelinayaa إلهي سبحانه وتعالى وحلا الربا إنه الرمينه وأنا الرمين قرينا كنا قنين كنا قنه مرنا ومعلومة شيء وإنفورميشن وواحد وقاتي مرنا وإيمان يا عقيدة يا معتقد وأكرر لنا يا مركز سلوك يا نقن مرنا ومعلومة ونادوقاتي وحسيسيدا يسيدايين marna si dhabaad u rumaysay oo noloshaada baa ku salaysan inaad samayso waxa kan ilaahay markuu ina leeyahay subxaanahu wa tacaala waina lana lalaakhirata waluula ama falilaahi alaakhiratu waluula iyo aayaadka la mida wahuwa allahu laa ilaaha ilaa huu lahu alxamdu fi luula walaakhirati walahu alxukmu wailayhi turjacuun nusuustaasoo dhan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala adduunkan iyo aakhiro labadaba isagu keligii inuu leeyahay ka la mahadiyo ee labadaba lagu mahadiyaa inuu isagu yahay walahu alxukm maamulkeeda kale inuu yahay isaga in loo soo noqon doono nusuustaa macnaheedu waxay tilmaamaysaa markaa mid waynu isku waafaqsannay inta badan aakhiro marka aad doonayso ilaahay cabsidiisa iyo cibaado iyo salaad iyo soon iyo kuwa kan inta ugu badan leh waxaynu u samaynay inuu aakhiro ajar ku helo laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegayaa subxaanahu wa tacaala tanna inuu isagu maamulo aakhiro qura maahee adduunkana inuu isagu maamulo taa macnaheedu waxay noqonaysaa haddaad adduunyo doonaysana ilaahay baa lehe raalligeli isaga haddaad aakhiro doonaysana ilaahay baa leh isaga raalligeli labadaba maamulkooda ilaahay buu subxaanahu wa tacaala ku jira fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay wailayhi turjacuun inama amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shay wailayhi turjacuun ilaahay wuxuu inoo sheegayaa markaasi subxaanahu wa tacaala kownka inuu maamulo wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa
lafaheennana inuu maamulo وآيات قرآن إلهي وحسكو حدي في سورة آل عمران لبا آيات القرآن وحسكو حيقة ميد إلهي وحكو تلمام يا نولش يصدو مامولو كاللبادنا وحا إلهي كو تلمام يا كونك يصدو مامولو لبا آيات وحسكو حيقة تكواد إلهي وحليه سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء نبي الله محمد با إلهي كولي عليه الصلاة والسلام قل وحتى هذا اللهم مالك الملك يا الله إلهي وادقا مالك الملك يا بغرتو يدا دمانت يدا إسكاله تؤتي الملك من تشاء adiga madaxnimada wax ka siiya dadka dunida ku nool adaa u qaybiya cidda madax noqonaysa watanzicu lmulka miman tashaa kaa doontana ilaahay adigaa ka siiba bini aadamku waa madaxnimo jecel iyo isku nabaya tii hore ilaahay wuxuu yidhi adaa siiya ta labaadna waxaa la yidhi nasci baa lagu tilmaamay kursiga waa la isku dhejinaya laakiin ilaahu adaa ka siiba baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala وتعز من تشاء وتذل من تشاء أديك شرفة ووينية وعزيز كردقا عدة دونته ووهيلية وتذل من تشاء عدة دونتنا إلهي وأديك دلية بيدك الخير إنك على كل شيء قدير wanaag dhammaantii gacantaadu ku jira wax walbana adiga awooda marka waxaa aayaadkaasi ka warramaya nolosheenna maamulkeeda in ilaahay leeyahay cidduu isagu madaxnimo la rabo inay madax noqoto cidda uu ilaahay subxaanahu wa tacaala dacfi la rabo inay ducafo noqoto cidda uu maamuus iyo magac la rabo in ilaahay isagu bixiyo siiyo عدة ذلنما لقول رضا إن إلهي سبحانه وتعالى كل رضا آيات كحكته إلهي وحط المام يندري مامله ومحيش يقيسه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هبينك adiga ilaahayow maalinta dhexgeliya baa la leeyahay maalintana habeenka dhexgeliya dunida waxaynu ognaa waa glob waa kubad yar mar kastabana cadceeddu waa joogtaa dhanna waa maalin dhanna waa habeen waanu wareegayaa taasi waxay sababaysaa in habeenkii iyo maalintu istaba socdaan marka 24 saacadoodba dunidu mar kasta waa joogaan si kale haddaan u tilmaamo 5 salaadoodba waqti walba waa la tukanayaa dunida marka la joogo qolaa subax ku jirta qolaa duhur ku jirta qaar baa casar jooga qaar baa maqrib jooga qaar baa cisho jooga qaar baa salaatuleyl u kacay habeen iyo maalinkii waqti walba way joogaan إلهي وحط المام ينو يسدح قلينا وقتنا هبين كان ديراده ومالنتا قابطه وصاعده مالنتي كم إذا هبين ماذا لو قدره وقتنا مالنتا ديراته وهبين كان قابناده ولا بينو أقول لك هذا وحكى له إلهي المام سبحانه وتعالى نلشنا إنه يسوي قعنتك وهيو ووامحي تخرج الحي من الميت واحد انتي اياد واحد نول كسو صارتا دوني دا ما جرتو عد نولل سمايسا وان الهي هين سبحانه وتعالى هداي مد ليرات هي هداي مد حيوانتي هداي مد بني ادم تهيبا الهي يقول بقليه اور دليه اسغان الله يودله وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب عدة دونتنا أديها حساب لي وحسية آيات كاسم حيسكو حريان
mid waa wada rumaysanoo cidina dee ma sheegato cadceedda ayaa wada dayax ayaa wada kaa cidina ma ku sheeganayso kownka yaa maamula universe-kan xidigaha kan galaxies-kan waxaan jiree dunida ee wada dhaqaaqaya wada soconaya aan midna mid ku dhacaynin laabudda min mudabbirin xakiim waa inuu jiraa cid tadbiirkeeda leh oo isagu maamula إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر إلهي وحو اسكت المامية في سورة يونس إنه يسوي التدبير كليه إنه مامله عدي تامرا كما تشيره لكن إلهي وحو يسوي كان حدا يطها إيا نولش بني آدم كاللبضة وإنه يسوي مامله سيدان طاعد وغمرا سنين إنه مامله أي عقيدة إن كتاب كأنه وحو دقيا آدنها نولشي سنسل لمدين إلهي ومامله أرزاق دان إنه يسوي قيبية وترزق من تشاء بغير حساب في سورة سورة الأعراف مركي إلهي كور رمي خلقك إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره مركي إلهي كور رمي خلق إنه سوى أبوري السماء هي الدل هي الضيح هي عدعاد هي حدقه مسخرنا إنيهين مذلل سيدي إلهي وطلق لنا إنه وصعنا يانا مدنا عاصيين أي إلهي وحك الله ينوت المامي ألا له الخلق والأمر أبور كان يستقاله مامل كان يستقاله sidaan abuurka cid ugu haysanin ayaan maamulkana cid ugu haysan baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala marka qofka muslimkii muxuu rumaysan yahay inaynu wax walba ilaahay weydiisano ilaan isagaa inoo sheegay nolosheenna inuu u maamulo siduu universe-ka u maamulo maa asaabaka min xasanatin fa min allah wax kastoo wanaag oo ay heshaan ilaahay buu ka yimi wamaa bikum min nicmatin fa min allah uma idaa masakum uduru fa ilayhi tajaaruun waxaan nimco heshaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ilaahay buu ka timi wax allaaliya waxaad nimco haysato xoog ha noqoto jiritaan ha noqoto caafimaad ha noqoto caruur ha noqoto maal ha noqoto ma qof baa wax la yimi dunida isagoo sita adoo qaawan baa timo mara yar lagugu duuduubay qofna waxba haysanin meeshanaa timi yaa lahaa waxa yaalla se yaa leh dee waagii dhaweyda koronuu dhacay weydinkii arkay iyadoo la leeyahay oxygen baa la iibinaya qofka oxygentiiba ka gooda imika yaa ku xisaabiya habeen iyo maalin ba oxygen baynu cabnaa soo ma ah kownkan waynu iska nimi aadnimaadne waxa yaalla ilaahay baa leh hadday beertay hadday dhultay hadday hawo tahay hadday macdan tahay hadday dhagax tahay waxaan waa isku walwalaaqanuun inagu waxba lamaynan imanin sidaa awgeed baa ilahay wuxuu leeyay wamaa bikum min nicma wax kasta oo wanaag iyo nimco ah haysataan ilaahay baa iskale baa ilaahay yidhi uma idaa masakum uduru fa ilayhi tajaaruun hadday dhibtu idin haleeshana xaggiisa ayaa u oloshaan ama isagaa xoog u baridaan baa alla tilmaamaya subxaana wa tacaala ayuha alaxiba taasi waxay keensanaysaa in caqiidadeennu xoogowdo iimaankeennu kordho inaad rumaysato arsaaqda intii alla kuu qoray inaad helayso adigu ama xaaraan ku raadi ama xalaal ku raadi inaad rumaysato qofna inaanu risqigaaga goynaynin ama goyn karinba shaqaha lagaa eriyo ama tijaaradu ha kaa khasaarto ama waxii doona ha dhacaan arsaaqda ilaahay kuu qoray adigoo dhammaysta mooyaane ka tegi maysid sidaa awgeed baa waxaa ka mid ah wardigii uu nebi maxamedina baray calayhi الsalaatu wasalaam man qaala raditu biاllahi rabba wbilislaami diina wbimuxamadi nabiya wajabat lahu اljanna waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam qofkii yidhaahda raditu billaahi rabban
إلهي بان رب النمر رالي وقنوضي رب النمر دوا محي إنه السيد يهي مالك يهي مدبر يهي شؤون الناس يسووا حكمه الربوبية كلها إنه يسووا ليه marka waa uu bariyo waxaad leedahay ilaahay maamulkiisa raalli ka ahay waxaad kaloo leedahay islaamnimadana diin baan u haystaa oo waa maxay inaan ilaahay u hoggaansamo oo wixii uu faray yeelo waxaad kaloo leedahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamna nebi baan u rumaysanay oo ah kaan kaga dayanaya nolosha sida loo maareeyo loo maamulo ilaahay sida loo caabudo muslimiintu maanta waxay rabaan inay yidhaahdaan salaaddii nebigaynu tukanaynaa laakiin dhaqaalihii nebiga aqbali mayno sakadii nebigaynu bixinaynaa laakiin siyaasaddii nebiga aqbali mayno waa caqli xumooyinka aadka u waaweyn waayo inaad ilaahay rabbinimo u aqbasho islaamna diimnimo u yeesho nebi maxamedna adminimo u aqbashaa waxa ka laasimayoo dhami wuxuu yahay wadoodaa inaad marto unde waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka subax kasta markuu ugu baryo yidhaahda radiitu billaahi rabba wabilislaami diina wabimuxamedin nebiya faana zaciimu laaakhudana biyadihi xataa udkhilahu ljanna haddii sanadkiisa xasan culamadu ay ku tilmaamayso imaam alalbaanina leeyahy waa xasan ligayri anaa gacanta qabanaya kaa ilaa aan jannada geliyay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam adkaarta layna baray ee markaynu tukanayno aynu akhrino salaada gudaheeda ku akhrino ama markaynu salaada ka baxna aynu akhrino macnahaasay sheegaysaa inaad rumaysatay in ilaahay ku maamulo wuxuu isagu kuugu talagalay mooyaane wax kalena inaanad helaynin maxaa ka mid ah waxuu nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeynka ku yaalla qofku marka uu yidhaahdo samica allahu liman xamida waxa la akhriya maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayt ama tan dubru kulu salaa baa la akhriyaa xadiiska bukhaariya muslim ay warinayaan salaadda markaad ka baxdo waxyaabaha lagu wardiye waxaa ka mid ah inaad ilaahay qirto uluuhiyadiisa qirtid mulkiga inuu isagu leeyahay qirtid ka keliya loo mahadnaqa inuu yahay rumaysatid wax walba ka awoodo inuu yahay oo aad weliba tidhaahdid allahuma laa maanica limaa acطayt ilaahu waxaad bixiso cidi nooma diidi karto haddii khalqiga oo dham isu tago waxaad noo diidana cidinama siin karto walaa mucطiya limaa manact walaa yanfacu da ljaddi minka aljad ilaahayow kuwa magaca leh agtaada waxba kama taraan waa salaada marka laga baxo salaada marka lagu jirana waxaa ka mid ah rabbanaa laka alxamdu mil'a asamaawaati waalard وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إمام مسلم باورينيا إذن صلاة دمرك إنو كجرنا وإنو قيرنا أرنكر إنو إلهي الدنيا نسوق مامله وحق السينا إنا عدي كامن عنكرين waxa uu kuu diidanaya inaan cid ku siin karin salaada markaad ka baxdana wardiga la akhriyaa bay ka mid tahay oo aad mar labaad akhrinayso qofka muslimka markaa maxaa laga rabaa yaqiintaasi inaanay caqligoo qura deginay inay qalbiga degto oo hadday qalbiga degto maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya maxay noloshaadu inay sidaa u salaysnaato noloshaadu inay sidaa ku salaysnaato ah inaad rumaysantay maamulkaaga in ilaahay gacanta kuugu hayo isaga aad baridid isaga aad cibaadaysatid isaga aad gacantiisa waxa ku jira raadisid isaga aad raalli gelisid khalqigoo dhammina aanay shaqadaada ahayn bal ee qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa mushkilaadku
insaanku waxa ugu badan ee uu ka fakara markuu dunida jooga ama dhib qabsato xal u raadinaya solution ama risqi buu raadinaya ilaahina wuxuu leeyahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib qofkii ilaahay ka dhowrsada ee jidkaa ilaahay aqbala wixii cidhiidhiya ilaahay waddu uga bixiyaa makhraj buu u yeelaa qofkii ilaahay ka cabsada meel aanu isagu xisaabta ku darin baa ilaahay ka arsaaqa adigu waxa laga yaabaa inaad wax isu geegeysato isleedahay maanta halkaasaa wax badanaad ka soo heli kartaa inaad waxba ka weydaaba suurtagala meel aanad waxbaba ka filayna in ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa siiyo saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu ciddii ilaahay tala saarata ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa ku filan ayuha alaxiba nusuustan haddaynu si dhaba u rumaysannay waxay noqonaysaa wax kasta inaynu isaga ka raadino dhibi markay ku qabsato maxaa kugu soo dhaca marka aan nusuustani aad inoo degin waxa kugu soo dhaca wartalow kii aa ilmaadeerka ahayd inay hebel ama heblaayo miyaad u tagtaa yaad wax weydiisataa xaggaad ula kacdaa markaaba xaggaasaad ka fakertaa laakiin hadday nusuustani qalbigeenna degto ugu horayn intaynan asbaab kale raadin ilaahay xaggiisa ay ugu kaci lahayn nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa xaadiista tilmaamaysay idaa xasabahu amrun fasaca ila asalaa haddii dhibi qabsato salaadda xaggeedu u carari jiray yacni mushkiladdiisii xalkeeda ilaahay buu ka raadinayay kow intaanuu bini aadam iyo cid kala qabanin ilaahay inuu dunida maamulo wuxuu inoo tilmaamayaa qur-aanka qisa ilaahay ka warramay reer banu israa'iil oo la dullaystay fircoon oo calaa fi lard dhulka ku kibray oo fasahaadiyey ilaahay baa wuxuu leeyahy wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lard waxaan doonay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu inaanu gallad siino oo ku galladaysanno kuwa dunida lagu dullaystay oo maxay ka yeelno wanajcalahum a'immatan wanajcaluhum alwaarihiin baa ilaahay yidhi kuwa inaan madax ka dhigaa baan rabaa baa ilaahay leeyahy kuwani waa kuwee waa kuwii reer banu israa'iil ee wiilashoodana la gowracayey hablahoodana la addoonsanayey nolosha caynkaasiya ku sugnaa baa ilaahay leeyahay waxaan rabaa inaan kuwan madax ka dhigo oo ilaahay muxuu leeyahay wanumakkina lahum fi lard wanuriya fircawna wahaamaana wajunuudahuma maa kaanuu yaxdaruun waxaan rabaa baa ilaahay leeyahy kuwa inaan dhulka makansiiyo gacanta u geliyo oo aan tusiyo baa ilaahay yidhi fircawn iyo haamaan iyo ciidamadoodu wixii ay ka cabsanayeen fircawn waa boqor haamaan waa wasiirkiisii wasiir ilawal prime ministerkiisii miya ciidamo tiro badan bay haystaan iyagoo intaasoo dhan haysta baa ilaahay leeyay baa waxaan rabaa inaan tusiyo baa ilaahay leeyay waxay ka cabsanayeen oo ahaa in qof reer banu israa'iil uu ka soo baxo si aan qofba u soo bixin bay yidhahdeen gowracno ilaahay tadbiirkiisa u fiirso fircoonkii caynkaa ahaa ayaa wiil muuse la yidhaahdo calayhi salaam oo yaroo dhashay ayaa ilaahay intuu soo qaaday la yidhi fircoonow adigu kori guriga fircoon baa la keena islaantiisii unbaa laga furfuri waayoo tidhi waa quratu cayn waxaan rabaa waa inuu wanaag inoo noqdaaba laga yaaba wuu ka aqbalay isagaa la yidhi kori wuu koriyey markuu koriyeyna isagaa lagu sababay inuu meesha ka qaado o qabsado reer banu israa'iil ilaahay subxaanaه wa tacaala nebi muuse markii loo soo diray ee fircoon iyo gruubkiisa la halaagi doono reer banu israa'iil xoog may lahayn ilaahay nebi muuse wuxuu yidhi habeen guuraysii oo xaggee qabadsii ka bax magaalada wuu ka baxa wuu guuraysiiyey
bad markay soo gaadheen ciidamadii kalena daba socdaan ayay meel ay u dhaqaaqaan oo kale waayeen xaggan waa baddii xagganna waa fircoon ciidamadiisii oo aanay la dagaalami karaynin dadkii waxay yidhaahdeen innaa lamudrakuun nebi muuse waa layna qabtay layna haleeli ayay yidhaahdeen nebiyullaahi muuse wuxuu tilmaamayaa war adduunkana ilaahay baa maamulay fircoon ma maamulo kalaa ina maciya rabbii sayahdiin buu yidhi warkaa iska dhaafa buu yidhi aniga macayga waxa ah maxay rabbigay isagaana ii jid bixinaya ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyay faawxaynaa ilaa muusaa an idrib bicasaaka albaxr faاnfalaq fakaana kulu firqin kaطawdi اlcadiim muuse waxaan u waxyooday baa ilaahay yidhi ushaada badda ku dhufo ul iyo bad maxaa iska galay asbaabta bini aadamka iyo macquulka insaanka haddaynu ku xisaabtanno uli bad waxba kuma samayso ama ku dhufo ama ku rid saa doontaba yeel ilaahayse wuxuu yihi usha adigu badda ku dhufo nebi muuse su-aal ma keenina ushu maxay badda ka qabanaysaa ma odhanin maadaama ilaahay yidhi ku dhufo khalaas ilaahay isagaa dunida maamulu rumaysay wuu ku dhuftay ilaahay baa inooga warramaya wuxuu leeyay faاnfalaqa fakaana kulu firqin kaطawdi اlcadiim baddii intaan kala dilaaciyey ayay laba buuroodoo waaweyn oo kala noqdeen biyihii oo meeshii maxay soo baxday ma waddo dhoobala oo ay ku limanayaan baa maya طariiqan yabasa baa ilaahay ku tilmaamay jid engegan baan u bixiyey waa meeshii hadda baddu joogtay markii ilaahay kala kaxeeyey wuxuu ka dhigay maxay jid bannaan baa laga dhigo engegan saasuu ku maray nebi muuse iyo ciddii la socotay waazlafnaa hama alaakhariina waanjaynaa muusa waman macahu ajmaciin wixii ka dambeeyeyna meeshaa lagu halaagay ilaahay innagana wuxuu ina leeyahay inna fii daalika laaayatan wamaa kaana akharuhum mu'miniin baa ilahay yidhi arrinkan calaama idinku sugana wax ku fahamtaan laakiin dadka inta badani rumayn maysa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waina rabbaka lahuwa alcasiizu الraxiim ayuha alaxiba ilaahay qisas badan buu qur-aanka inoogaga warramayaa uu inoo tilmaamayo tu'ti اlmulka man tashaau watanzicu اlmulka miman tashaa maxaa ka mid ah fii suurati yuusuf qisa ilaahay ka warramay wiil yar oo yuusuf la yidhaahdo oo walaaladii colaadiyeen oo god lagu riday oo dabeetana godkii inta laga qaaday sida xoolaha la iibiyey oo haddana iibkii ku dhacay guri boqortooyo uu geeyey oo gabadhii joogtay ay hunguraysay oo haddana marka istiri kufse oo uu diiday la xidhay oo xabsi galay xabsiga isagoo ku jira boqorkii dhammaayey meesha haystay uu riyo ku riyooday dabeetana uu waayey cid fasirta qola nebi yuusuf xabsiga kula jiri jirto ka soo baxday ayaa ninkii yidhi warnaa garanaya riyadan cid inoo fasirta dabeetana riyadii qaaday oo u geeyey nebi yuusuf oo xabsiga ku jira wuu u fasiray riyadii muu odhanin kuwii xidhay baa tiniye kuwii caynkana wuu u fasiray kadibna biamri illaahi waa laga soo daayay xabsigii bale waddankii baa ra-iisul wasaare looga dhigay miyaynu odhanaynaa madax looga dhigay markaasuu haddana dadkii wuxuu ka badbaadiyey abaaro ku soo socday oo khita iqhtisaadiya oo 15 sannadood ah iminka qolada baarlamaanadii waxay dhahaa 5 sannadood barjadkoodii ama khitadoodii baa la dhigay nebiyullaahi yuusuf mid 15 sannadooda buu dhigay 7 wax la beeran doono oo la kaydin doono 7 dambe oo abaaro waxaa la cuni doono sanad ku xigo oo haddana khayr badan noqon doono qisadani maxay tilmaamaysaa waxaan uga jeednaa anigu qisada ma rabna inaan ka warranno laakiin waxaan tilmaamaynaa uun tadbiirullah ilaahay siduu wuxuu doonayo u sameeyo u maamulo wiil yar oo god lagu riday in ilaahay waddadaa mariyo ilaa uu ka dhigo boqor intaad adigu is odhan lahayd ilmo yaroo god cidla ku yaal lagu riday baa waddan maamulay ma is odhan lahayd
bale waddankii markaa dunida ugu weynaayo masar ahaa dunya lagu tilmaamayey ayaa inan yaroo god falastiin ku yaalla lagu riday ayaa maamuli doona waa ghariiba min gharaa'ib الdunya laakiin ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tadbiirkiisa saa ogeed ba qisadaa marka ilaahay ka warramaya wuxuu leeyahy wallaahu gaalibun calaa amrihi walaakina akthara annaasi laa yaclamuun ilaahay arrimihiisa isaga ku xoog badan gaalib ku ah laakiin dadka inta badani ma oga baa ilaahay yidhi dadka inta badani cid kaley marti u yihiin maanta maxaa caalamulislaami muslimiinta haystaa gaal bay marti u wada yihiin isagaa laga cabsan ilaahay laga cabsan maayo laakiin gaalku inuu waxyeelayaa la rumaysay oo gaalkaa laga cabsanaya ayuha alaxiba sheekh kale iga dambeeyo waan soo koobayaa deriska maxaan deriskan u akrinaya falilaahi alaakhiratu waluulaa maxaynu u sharxaynaa waxaan u sharxaynaa ka dhalanaya wuxuu yahay dad muslimiin oo ilaahay rumaysan baynu nahy arrimaheennoo dhan inaynu ilaahay u bandhiganno mu'minu aali fircawn muxuu lahaa fasatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amrii ila allah tolkayow waa xasuusan doontaan waxa aan idin leeyahay aniguse ufawidu amrii ila allah anigu arrimahayga ilaahay baan u bandhigtay in allaha basiiru bilcibaad ilaahay waa kii arkaya addoomihiisa ilaahayna wuxuu inoo sheegay markaa fawaqaahu allahu sayi'aati maa makaruu fircoon iyo kooxdiisii wixii ay u degeenee dhib ahaayoo dhan ilaahay baa ka ilaaliyey waxaaqa biaali fircawna suu'a alcadaab reer fircoonna cadaabkii ugu kululaa baa ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ka waraabiyey darsigani wuxuu ku kooban yahay adduunyadu waa wax yar aakhirana waa meesha loo socday aan dhammaanaynin infinity adduunkana 50 60 70 qofka gabooba inuu dhahna wuu cimriyey 80 waxaasaa jiraysa adduunka 80 sano ama 100 sannadood iyo nolol infinity ah aan xuduud lahayn isbarbar dhig mar labaad waxaad rumaysataa in ilaahay tanna maamulo taa dambana isagu maamulo sida taa dambe isaga uga rajaynaysa aanad cid kale uga rajaynaynin aakhiro ma cidaynu rajaynayno kalaa jira yowma yafiru lmar'u min akhiihi cid walba maalintaa waa laga cararayaa hooyo aabbo walaal wa fasiilatihi alatii tu'wiihi waman fi lardi jamiican uma yunjiibu qof waliba raadinaya taas sida aanad cidna ugu tiirsanayn tanna waa inaynu rumaysanaa ilaahay oo kaliya inaynu ku tiirsanaano tanaynu joognana waa inaynu saa rumaysanaa tilka daaru alaakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi lardi walaa fasaada walaa caaqibatu lilmuttaqiin baa ilaah yidhi aakhira waa taa adduunkanna waa inaynu garannaa wabtagi fii ma aataaka allahu daara alaakhira wax allaaliya wixii ilaahay ina siiyey hadday xoolatay hadday caqli tahay hadday tacliintay hadday garasho tahay hadday aftahannimo tahay hadday gabyaannimo wax allaaliya wixii awooda ilaahay ku siiyey ku raadi baa la yidhi addaar alaakhira wabtagi fii ma aataaka allah wixii alla ku siiyey daarta aakhira ku raadi walaa tansa nasiibaka min addunya baa la yidhi adduunkana dheeftaada ha ilaabin laakiin dheefta adduunna waa inaad rumaysata inay ilaahay ku xidhantay isaguun iyadana weydiiso waaxsin kamaa axsana allahu ilayka walaa tabgi lfasaada fi lard ayuha alaxiba adduunyada ilaahay baa maamula ilaahayna wuxuu yidhi adduunyo ninkii doonaya man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid kuwa adduunyada raadinaya baa ilaahay yidhi intaanu annagu doonna baa ilaahay yidhi baan usoo horu marinayaa kaan doono
iyo intaan doona baa ilaahay yidhi ثuma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madmuuma madxuura hadhowna jahannamaan ku gurayaa baa ilaahay yidhi idan adduunyadii ilaahay wuxuu leeyahy xataa haddaad adduunyo raadinayso anigunbaa intaan doono ku siinaya baa ilaahay yidhi inta kale heli maysid qofkaan doonana siinaya adduunyada siinteeduna kuma xidhna gaal iyo muslimtoona numiddu haaulaa'i ilaahay wuxuu yidhi kuwan iyo kuwaba wax baanu ka siinaynaa adduunka waayo waa imtixaanun maxaa laynaga rabaa markaa waman araada alaakhirata wasaca laha sacyaha wahuwa mu'minun faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura kula numiddu haaulaa'i wa haaulaa'i min caطaa'i rabbik wama kaana caطaa'u rabbika maxduura kelmaddayda ugu dambaysaa markaa waxay tahay ayuha alaxiba waxa aynu rumaysannahay aan dhaqan u bedelno waxaad rumaysannahay ilaahay inuu adduunkana maamulo aakhirana maamulo dhaqankeenna ha ka muuqato markaa dhaqankaynu ku dhaqmayno markaynu dunida joogno taasi ha ka muuqato oo aan noqonno wax walba inaynu ilaahay ugu tiirsanaanno wax kasta inaynu isaga weydiisanno qisa yaroo hariibaan idiin sheegayaa nin dadka ilaahay ku xidhan ah ayaa maalin yurub wuxuu igu yidhi gurigaygu unbaaban lumay buu yidhi magaalo haddii si fiican uu garanay gurigii baan ka lumay buu yidhi si kasta waan u socdo waan waayay buu yidhi markii dambe aan sidhi buu yidhi warta hedhe gurigaagii maad ilaahay weydiisatay idinka mayd ku soo dhici lahay intaan istaagay baan ilaahay baryay buu yidhi ilaahu gurigaygii hanuuni waan dhaqaaqun anigoo hortaagan unbaaban is arkay buu yidhi yacni dadku markuu ilaahay rumeeyo qofku si dhaba u rumeeyo noloshiisoo dhan baa ilaahay ku xidhantaa guri uu ka lumay ismuu odhan bal dadka weydiiyo adreska ayaa garanaya dhehe ilaahay weydii unbuu is yidhi ilaahay markuu weydiiyeyna ilaahay subxaana wa tacaala wuu uga jawaabay wuu gartay gurigiisii wuu is hortaagay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu inugu anfaco qur-aankiisaasi caqiidadeedana mid toosan in la ka yeelo dhaqankeennana ilaahay waafajiyo kitaabkaa qur-aanka aynu rumaysannahay sala allahuma calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin